السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى وكل سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وحا آيات كان يسودقين وقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كحيي ميل بلا آدمي وقال ماشي أسريسي وهلكي نبي محمد لو صفري صلاة الشنطة ماشي آيات وقيمها بضل نبي محمد مركو إلهي حقا وكي waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa adoonnimo ayaa uu Ilaahay ku amaanay inuu Nabi Maxamed ku sifaysmo. Adoonnimada dhabta ahi waa ujeedada koobaad waa fariinta cad ee Ilaahay uu naga rabo in dhammaan ku sifaysnaa. Inaad adoon dhab ah Rabbiga aad u noqotaa wuxuu Ilaahay ka rabo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku leeyahay suuradaha quraanka mid kamid ah farayta man ittakhadha ilaahu hawaahu. Nabi Maxamed waxaad ka warantaa ninka ka dhigtay ilaah la caabudo wax Allah wax kastoo ay naftiisu jeceshahay. Naftiisu waxa ay jeceshahay ayuu qofkaas caabudaya. Waxa jira waxyaalo fara badan oo dadku weyneeyaan oo mararka qaar ay gaarsiiyaanba heer cibaado. waxyaalaha waxa kamid ah inuu qofku adoon u noqdo shahwadiisa rabitaankiisa inuu qofku rabitaankiisa uu adoon u noqdo waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu halaagsan wax kamid ah inuu qofku uu rabitaankiisa uu ka dhigo waxa koobaad ugu horeeya uguna dambeeya waxyaalaha Ilaahay laga mudan karo. waxa suurtagal ah qofku inuu mar walba uu naftiisa uu siiyo kaalin aan lahayn marka waxa lagu tilmaami karaa qofkaas wuxuu gaarsiiyay heer cibaado. dadka qaar waxa ay weyneeyaan maalka haddii maalka loo dhiibo oo ay helaan waa ay farxaan haddii loo diido ama ay khasaaraan murugo tii u weeyd baa ku dhacda markaas dadka waxa uu xidhiidhinaya maal iyo hanti awgeed cidda uu colaadinaya maal iyo hanti awgeed qofkaasi waxa uu gaarsiiyay maalka heer cibaado adoon waa uu yahay balaadhan kara oo sidii ninka rasuulku tilmaamay. dadka qaar adoomo waxa ay u yihiin afkaar qaldan sida calmaaniyadda iyo dimuqraadiyadda iyo wixii la mid ah meel kastoo ay tagaan iyaday ku hadal hayaan meel kastoo ay tagaan iyada ayaa ay ku amaanayaan waa sidii nin dictooran aqaano oo meel walba tugaarta ku hadlay. dadka qaar waxa ay heer cibaado ay gaarsiiyeen wadaadada qaar kamid ah wadaadka haddii lagu raaco heer Ilaahay u baneeyay inuu xaaraantimeeyo qofka lagu raaca waxa la gaarsiiyay heer cibaado Ilaahay waa quraankiisa ku sheegay ittakhadhu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaban min duunillah. reer bani Israa'iil markii la dhaleecaynay wadaadadii bay heer Rabbi ay gaarsiiyeen heer cibaado ay gaarsiiyeen wax kasta way ka maqli jireen wuxuu Ilaahay xalaaleeyo way xaaraantimeyn jireen wuxuu Ilaahay xaaraantimeeyana markay xalaalayaan way u raaci jireen heerkaas cibaadada ay gaarsiiyeen. dadka qaar waxa ay heer cibaado ay gaarsiiyeen inay wax walay sameeyaan ay ku xujoodaan wax casri ah sidoo doon xeeranaya sidoo doon u labsanaya sidoo doon u fikiraya Allah wax kasta uu jecel yahay uu sameeyo isagoo kaga dayanaya nin reer galbeed ama ciyaartoy uu jecel yahay ogow ama ogaani waxaad gaarsiisay cidaas heer cibaadad gaarsiisay si kale aynu dhignay adoon baa tahay. dadka qaar asxaabtooda ay weyneeyeen in ka badan inta Ilaahay weyneeyay. dadka qaar qabiilka iyo cidda ay ka soo jeedaan bay weyneeyaan daba waxa soo dhan adigu bal dib isugu noqo cidda aad weynaysa waayo noloshaada iyo mudnaanta koobaad aad siisaa day ku noqoto adiga shaqadaada eedaanka yimaad raaci lahayd markaas aad ogaanaysa cidda koobaad aad siisay noloshaada mudnaanta koobaad dib isugu noqo oo ogow ujeedada Ilaahay ku abuuray ay ahayd inaad adoon dhab u noqoto ma u tahay mise